Harold Shimon oo ahaa dhakhtar caafimaad kaasoo dilay 250 ka mid ah bukaankiisa muddo 27 sano ah iyadoon laga shakiin. waana mid ka mid ah dilalka taxanaha ah ee ugu caansan dunida. muuqaalkeena maanta waxaynu ku eegi doonaa qisada dhakhtarkan isku bedelay dilaaga. intaynan guda gelin muuqaalka subscribe saar kanaalka sidoo kale like saar muuqaalka waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin. ugu horeyn kumuu ahaa Harold Shimon. Harold Shimon wuxuu dhashay 14 Janaayo sanadkii 1946. wuxuu ahaa cunug aad u jecel hooyadii. markii uu yara koray hooyadii waxaa laga helay cudurka kansarka sanbabada, isaguna wuxuu markasta ka warhayay xaaladda caafimaad ee hooyadii. wuxuu arkay oo uu aad ula yaabay saameynta togan ee morfin ku yeelatay hooyadii ilaa ay hooyadii u dhimatay cudurka sanadkii 1963. geerida hooyadiis kadib wuxuu go'aan ku gaadhay inuu barto caafimaadka. wuxuuna ku biiray iskuulka caafimaadka ee Leeds si uu ugu soo qaato tababar 2 sano ah. wuxuuna ku dhacay imtixaanaadkiisii ugu horreeyay. wuxuuna la kulmay xaaskiisa mustaqbalka Primrose. wayna isguursadeen sanadkii 1974 iyadoo 17 jir ah. waxaana u dhashay 2 carruur ah. isla sanadkaas 1974 wuxuu ku biiray xarun caafimaad oo ku taala Tadmorden. wuxuu noqday dhakhtar aad u fiican oo guta shaqooyinkiisa. waxaa la sheegay inuu qabatimay xanuun joojiyaha Bethadine, waxaana laga joojiyay shaqadii sanadkii 1975 oo lagu khasbay inuu isbedelo oo uu qaato dhaqan celin. dhowr sano kadib Shimon waxaa laga ogolaaday inuu ka mid noqdo shaqaalaha xarunta caafimaadka ee Donnybrook. wuxuu la soo baxay karti oo uu ku kasbaday kalsoonida bukaanka iyo asxaabtiisa. wuxuuna goobta ka shaqaynayay 20 sano. howlwadeennada deegaankaas ayaa ogaaday in bukaanada Dr. Shimon ay u muuqdaan inay ku dhimanayaan heer aan caadi ahayn. waxayna arkeen in dadkani si isku mid ah u dhimanayaan. waxayna isku dayeen inay Dr. Shimon kala hadlaan arrintan. sidoo kale dhimashada bukaanka aadka u badan waxaa ka shakiyay Dr. Susan Booth, waxayna la socodsiisay xafiiska dambi baadhista. waxaana la bilaabay baadhitaan qarsoodi ah. baadhitaankii waxaa ka hor yimid dhibaatooyin aad u badan, laakiin baadhitaan aad u dheeraa kadib waxaa lagu ogaaday in Dr. Shimon uu bedelay diiwaanka caafimaad ee bukaankiisa. sababaha ay u dhinteen dadkani waxaa aad u adkaatay in la ogaado goortii uu bilaabay Dr. Shimon inuu dilo bukaankiisa, sidoo kale inta qof uu dilay. daawade haddii aadan weli subscribe saarin kanaalka fadlan subscribe saar, gambaleelkana furo si aad noola socoto. leegna ka ilaawin muuqaalka. waxaa xusid mudan Dr. Shimon marka uu dilo qofka inuu ka qori jiray dukumentiyo been abuur ah oo uu ku sheeganayo in uu dardaarmay hantidiisa. dambi baadhayaashii waxaa wadda u furtay Angela Woodruff oo uu dilay hooyadeed Dr. Shimon, taasoo ahayd maalqabeen oo meydkeeda laga helay gurigeeda sanadkii 1998. Angela waxay ahayd gabadh sharciga wax ka taqaana, waxayna ogaatay in hantida hooyadeed uu Dr. Shimon qaadan doono kala badh. waxayna caddaysay in Dr. Shimon uu dilay hooyadeed. sidoo kale dukumentiyadani ay yihiin been abuur. arrintiina waxay gaadhay booliiska iyo dambi baadhayaasha. waxaa la gudagalay kiiskii, waxaana qabrigii laga soo saaray meydka islaantii dhimatay.
baadhitaan lagu sameeyey meydka waxaa la ogaaday inay u dhimatay xaddi badan oo ah morphine. intaa kadib Dr. Shiban waxaa lagu weeraray gurigiisa waxaana laga helay waxyaabo aan caadi ahayn sida dahab aad u badan iyo makiinadaha sameeya waraaqaha. booliskii waxay baadhitaan ku sameeyeen kombiyuutarka Dr. Shiban oo ay ka heleen macluumaad ku saabsan diiwaanka dhimashada. booliska waxay arkeen in diiwaanku bedelan yahay sidoo kale waxay arkeen in dhawaan la diiwaan geliyay oo lagu qoray kombiyuutarka. sanadkii 1998 bishii Sebtembar 7 Dr. Shiban waxaa lagu soo eedeeyay 15 dil. sanadkii 1999 waxaa maxkamadda la hor keenay dacwadda Dr. Shiban. Angelina waxay ahayd markhaatiga ugu weyn ee la haysto. 31 January sanadkii 2000 Dr. Shiban waxaa lagu xukumay xabsi daa'im. intaa kadib waxaa la sameeyay baadhitaano qoto dheer waxaana la cadeeyay Dr. Shiban inuu mas'uul ka ahaa dilka 250 qof ka mid ah bukaankiisa. mana jiraan tiro sax ah oo cadeynaysa inta uu dilay Dr. Shiban. bishii June sanadkii 2003 Dr. Shiban waxaa loo wareejiyay xabsiga Whitefield. maalintii ay taariikhdu ahayd 13 Janaayo 6 subaxnimo sanadkii 2003 waxaa Dr. Shiban laga helay meydkiisa isagoo isku daldalay qolkii uu kaga xidhnaa xabsiga. waxaa jira warar qalsoodi ah oo sheegaya halka uu ku dambeeyay meydka Dr. Shiban. dadka qaar ayaa aaminsan in Dr. Shiban lagu aasay xabsiga halka qaarna ay aaminsan yihiin in meydkiisa ay gacanta ku hayeen qoyskiisa iyagoo sheeganaya in la dilay si baadhitaan dheer loogu sameeyo. intaas ayay ku egtahay Dr. Shiban qisadiisa. haddaba daawade ha ilaawin inaad dhiirigeliso oo aad like saarto muuqaalka haddii aad ka heshay sidoo kale subscribe aad saarto kanaalka.